xabsigii la igula kacay dhawaan anigoo ah musharax u sharaxan golaha wakiilada Somaliland kana sharaxan gobolka Sool xisbiga wadani ugu horeyn waxaynu ku jirnaa bilshii barakaysnayda Ramadaan anigoo jaaniskan kaga faa'iideysanaya ciidiina ay nagu soo hayso inagu dhowdahay waxaan shacabka reer Somaliland iyo muslimka aba leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr mahadnaq waxaan la wadaagayaa runahan xisbiyada mucaaradka oo si wada jira uga dhiidiyay ama uga howlgalay arintii xabsigii musharaxiintii xisbiyada ka xidhnaa waxaan hambalyo khaas ah u dirayaa xisbiga wadani hogaankiisa Cabdiraxmaan iyo saraakiisha sarsare ee xisbiga oo runahan intii aan xidhnaa ku jiray hawl adag ila garab taagnaa talo iyo tusaale iyo wax walba oo ay qaban karayeen buuxiyay kaalintoodii kuna guuleystay inay xabsigii banaanka iga soo dhigaan amaantiina lama soo koobi karo waxaad tusteen qiimaha xisbigu leeyahay waxayna dhiirigelin noqonaysaa inaan dardar geliyo mas'uuliyadnimadeeda xisbiga xabsigayga runahan waxa loo maray wuxuu ahaa xabsi xaq darro ah loona maray sifo aan sharciga waafaqsanayn anigoo ah xildhibaan leh xasaanad aan la garanaynin cidi soo dacweysay iyo meel la iga haysto ayaa la ii yimid goobtii aan deganaa la ila dhaqmay si argagixisanimo ah la ii geeyay xabsi la igu riday qol la ii diiday in dadku ii yimaadaan oo qolkiina la igu soo xidhay la ina diiday dadkii ii socday oo dhan intaa waxa ka daran waxyaalaha aanan marna ka filaynin inay qarankayga Somaliland ka dhacayaan oo ah in qof xanuunsanaya ama xanuuno ay yeeshay oo xabsi ku jira dalbaday dawooyin iyo dhaqaatiir aysan u suuroobin in dhakhtar la geeyo intii aan xabsiga ku jiray dhowr jeer baan dalbaday in dhaqaatiir la ii keeno marna ma aysan dhicin inkasta oo markii dambe saraakiisha xabsigu ay ii ogolaadeen in dawooyinkii aan qaadan jiray anigu aan qorto oo markaa sidaa la iigu keeno xabsigayga waxa uu ahaa xabsi siyaasadaysan waxaana ka dambeeyay madaxda xisbiga kulmiye especially waxaan aan tilmaamayaa xisbiga kulmiye oo isku dayay deegaanka aan u tartamayo inuu qaato codkiisa si cad oo bareer ah hogaanka gobolka Sool mas'uulka ahaa kulmiye uu u yimid deegaankayga una sheegay inaysan siinaynin xubin baarlamaan codka reerkana ay doonayaan inay ku dhisaan hogaanka kulmiye ee gobolka taas iyadoo beeshu ka dhiidhiday waxay ku guuleysatay in xisbiga wadani uu u sharaxo xubinta arintaas waxay keentay wax kasta oo lagu wiiqayo musharaxnimada ma aanu sharaxanahay xisbiga arrimahaas wali waxaan la soconaa in ay faragelin jirto in deegaamadii raggii noocaas ahaa ay xilal aanan garanaynin in tartamo ahay xilka uu bixin karo xilliga kan tartanka ku jiro ay bixinayaan oo ay dadkii ugu ballan qaadayaan xil hib baan ku siinayaa darajaan ku dalac siinayaa iyo wasiir baan ka dhigayaa iyo agaasimaan ka dhigayaa waxaan u maleynayaa shacabka deegaanka iyo shacabka gobolka Soolba way ka koreen xilligii kulmiye uu sheegi jiray beenta deegaanka waad la socotiin oo in yar baa kulmiye u codaysay intiina waxaan shaki ku jirin maanta inay fartoodii ay eedeen waxaan ku soo koobayaa xarigaygaas wuxuu ahaa xarig siyaasadeed oo ka dambeeyeen siyaasiyiinta kulmiye tii ay ugu tala galeen may noqon go'aankii Ilaahay ayay noqotay waxaan nahay maanta musharax u tartamaya xisbigiisii iyo deegaankiisii banaanka jooga diyaar u ah ololihii doorashada waxaan soo jeedinaynaa oo baaq u dirayaa
dadka deegaanka baaqaasoo ku saabsan inay iska ilaaliyaan dadka xilalka beenta ugu baaqaya ee aan jirin ee leh iyaga oo isticmaalaya awoodii ama maaliyadii xukuumadda inay yidhaahdaan waxaanu bixinaynaa xil hebel waxaanu bixinaynaa hil hebel waxaanu idiin qodaynaa ceelal waxaanu idiin samaynaynaa waxyaalaha noocana waxaas waxaan ka digaynaa maaragtay in dadkaasi aan lagu khaldin sidoo kale waxaan shaki ka jirin in saraakiisha kulmiye ee deegaanku ay isticmaalayaan saraakiishii ciidamada ee gobolka taasoo runtii warwar badan dadka deegaanka iyo musharaxiintaba ku haysa waxaan la soconnaa inay saraakiisha deegaanku ku milmeen siyaasadda dowladda oo ay ahayd inay ka madax bannaanaadaan ay iyagu maanta yihiin ololeeyaasha ee doorashadan waxaanu ka digaynaa in ciidamadu ay ku milmaan siyaasadda noocaasa waxaan sidoo kaleeto aan xukuumadda ugu baaqaynaa dee saraakiisha maanta faraha kula jirta doorashadii ee reer walba u tegaya ee darajo ciidan bixinaya ee weliba saraakiishaasi intay beelaha u tagaan ay leeyihiin xidig baan ku dalacsiinaya iyo labaan ku dalacsiinaya in amniga iyaga lafahaantiisa uu shaki ku jiro waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay ilaaliso musharaxiinta amnigooda iyo nabadqabkooda xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale inay arintaa faragelin ku samayso ciidamada ku milmay dadka shacabka deegaankana waxaan ugu baaqaynaa inay ka taxadaraan ciidamada siyaasadda ku milmay ciidamadana waxaan ugu baaqaynaa inay gartaan shaqadooda oo ay ku koobnaadaan taageerayaashayda waxaa ilaahay mahadiisa inaan maanta banaanka joogo inagoo intii hore ka firfircoon ka waxqabad wanaagsan ka rajo wanaagsan aragnay in qorshihii lala maaganaa deegaanka ay ahayd in matalaadiisa la xaqiro uu meesha ka baxay waxaan soo jeedinaynaa waan ku baaqaynaa haddii ay inaga dhammaato aynu cidno waxaynu gelaynaa waa tartankii doorashada u diyaar garooba doorasho qurux badan oo u dhacda si wanaagsan oo qurux badan haddii aysan kulmiye carqaladaynin waxaan idinku bishaaraynayaa in rajadu wanaagsan tahay waxaan idinku bishaaraynayaa in guushii dhowdahay xabsiguna waxba iima dhimin wuxuu igeliyey awood ka badan tii aan markii hore lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu